niyow haddaad dhaqan soomaaliyeed taqaano ama haddaad xishoonayso dad waxaa jira sidoodaba loo jawaabo iyo dad laga gambado war ayugow annagoo saaxiibo ah waxaan ahay ninka inta badan kula soo istaagay gabadha ilmaha kuu dhashay ku siiyey ee khudbadiisa ee duubantaa ee youtube ku jiray ee yidhi anigoo hebela ayuu kaarlo qoyskeenna ka tirsan oona loo xisaabay nin dublaa inuu yahay ama nin fog oona aniga ah nin mataqaana nin qoyskeyga ka tirsan ayaan anigoo adeera gabadha heblaayo hebel siiyey ayaan ahay ninka waxaan ahay arooskaagii iyo quruxdaadii iyo gurigaaga sacartu abaabule baan ah ninka waxaan ahay wiilka ilaahay khayr ha siiyo ha barbaaree maxamed markuu ku dhashay curadkaaga inta baxay soo barbaariyey gardaas waxaan ahay gardaadiyey baan ahay ya ninka gardaadiyey baan ahay ninka waxaan ahay wiilkaaga markuu dhashay ee u horreeyey ee geeya hadiyadii ugu horreysay ee ah abtinimo iyo adeernimo ninka waxaan ahay saa aan kaan dhalay iyo kaan dhashay aan kala aqoon ee habeenii maalin xaalkooda ka warqabee dul taagan baan ahay qofka sidaasa ee halkaa darajada ka galay ya ee marna saddex kuu noqday gabar ku siiyey ya marna adeer kuu noqday gabar ku siiyey marna saaxiib kuu noqday marna culadkaagii gardaadiyey miyaad iga dhaadhicinaysaa nin daarooda soo raacan meelo fadhiistaan ku saxay oo ani soddonka mala saxa oo adeerkaaga la saxa ya oo saaxiibkaagaa dhahay markaad iga saxaysa life maxaad ii soo weysinaysa waxaas waa ku qaldanta haddaad isaxiisay oo dhaqanku adag taase maxaad markii uu isaga kii kula fadhiyay madaxweyne afka qalloocnaa soo fadhiisto xaaskayga cay adiga ugu jawaabayso dhihaysa shuubo intaas taqaadiga shuubay maxaa u dhihi weysa waxaa weeye waxaasoo dhan waxay caddaynayaan inaad xoogaa degdegayso inaad wax walba dhaafsanayso ayeynimada oo ku saabsan giftiga maalka adduun uma baahnin qoys badanaa ka dhalatay dadka kasoo jeeda dhaqaana xag hooye xag aabe ninkii ugu caansanaa dubaygu xoolaha badnaaya ku dhalay waxa weye baahidaa ma qabtid waxaase waxa weye wax iska jamac oo iska caamo weye dhalinyar badan bay maskixiin bedeshay laakiin aniga waxaan ahaa qofka keliya ee la bedeli waayey ee anoo soomaali dhan isku heli karo iyo wada jecel yihiin taagan qabiilkayga sababtana waxay tahay fariin baan dirayaa manihi for sale waxaan nahay qadiyad waxaan adiga mar walba ku gar joogana waa isla qadiyadaas adoo ayay gifti ah oo hiraabnimadii iyo dibadnimadii iyo wixii dhan habgeedna ka tagtay oo gifti raacday oo mid yar afqalo aan dhareeray la soo fariisato isu maraysid waxaan ku leeyahay ayuu marna igama xishoon haddaan doqon ahayna oo nin doqon ahayna intaan aniga qabtay oon kula garab joogsaday ya kulama garab joogsadeen haddii aad leedahay qof kaloo kaaga dhowna intaan aniga qabto qaban lahaa waxaan ahay soddonka aniga waxaan ahay ninka walaalkaa ina axmed xuseenoo ee kusoo koro daaqadaha ee kula kabtama ee wuxuu doono ku yidhaha haddana aan xarsimo kartagno sidaas inuu laandhisa lagaa rabaa dadkana been ha u sheegine ayay gifti ugo ama tolka kusoo laabo maxaa yeele boqorkii idh soomaalana waana mahadsan okay aada u mahadsan tahay horta niyahow aniga inaad abaal ii gashay oo nin walaalkeeya tahay oo nin saaxiibkeeya tahay oo nin ehela tahay oo dee walaalkay ila dhashay aad iila mid tahay meel walbaan ka sheegaa publicna waa ka sheegaa privatena waa ka sheegaa wanaagaaga laakiin waa gocate hadda waa gocato calooshaa ka hadashay okay laakiin waa aarsate oo waxaad ku aarsatay waxaad tiri sahro waa walaashay aniga marna adeerkeeda ahay marna waa dumaashidii cabdullane waa wiilkaygoo kale aaminne waa wiilkaygoo kale okay haddaad tiri hortaadaan nin ku caayay oo waad ka aamustay adiguna waa sameeyda middaa mid lamida laakiin anaa ku horreeyey ma garatay anaa ku horreeyo oo waa kaa qaatay ma fahanti kana raali noqo
haddii taas ay dhacday ما لو مقلد محل hadalkii ugu dambeeyey oo aad maqashay igu soo celi aan kasii qabtay samooda celi kare ما يكون صح وهذا انت بدل ساعه okay haddii aad daahirow aad maantay tiri hortaada baa nin wuxuu ku caayay owladeeda iyo owlaadeyda nin daahirow intaa in lamida aadba waa daawatay inkastoo micnaha aniga aan ku horreeyey taana waxay ahayd sahro caay ma lahan waa marwo sharaf leh waa marwo qiimo badan waa marwo asturan waa marwo aan lagu arag internetka ilmahaagana waa ilmo sharaf leh aabba fiican oo ilmihiisa jecelaa tahay sahrana caay waxba ka dhibi mayso adiguna waa caytantoo ninkaa waa weerartay oo dee wax aad u reebatay ma jirto marka yaa ku horreeyey marka adaa ku horreeyey okay haddii asagana uu kula mid noqdo oo ku soo weerarayo ilmahaagana wax ka sheegayo xaaskaagana wax ka sheego dee xaaskaaguna ceeb ma leh ilmahaaguna ceeb ma leh taa waa midda ah inaan aniga markaas meesha fadhiyey oo caynayay ilmaha iyo sahro waa ka jawaabay oo waxaan eray iguma hor caayi kartid haddii aad keento anoo sidaa u dhegaysanaya daahir iyo owlaadiisa iyo xaaskiisa oo la caynayo xaal iyo xumeen baan ka bixinayaa okay haddii nin ilmaha iga caayay aan aniga la saftay oo aad hadalka u dhigtay inaan la saftay aniga lama safan oo waxaan iri keliya nimco iga raali noqo maadaama hadda ka hor hadalkaas afragaadada ah aan ku iri halgelin keliyaan ka baxshay ma garatay marka midda ah gabadha aan kala tagnay ee hibe ah iyo wiilkayga maxamed aamiin iyo gabadheydaba sikii wacay wacallow ku sheegay weliba wuxuu ku sheegay inaan aniga dhalin weliba wuxuu ku sheegay inaan adiga dhashay waa aflagaado waa tii ugu darneed waay waa dagaalka meesha u xun ninkaas markuuna kala gaarayo waay caddayn baa ku tusay screenshot baan kaaga soo qaaday haddana waxaa tiri tolnima uga leexday okay owlaadeyda buu caayay gabadhii aan kala tagnay buu caayay sikay privatena waa ku caayay publicna waa ku caayay tolnima uga leexatay markii koowaadna maaha ee waa markii labaad horena waa kugu sheegay haddana social media ku jirta ma fahmaysaa marka waxaan kuu sheegaa ilmahaagana caay ma leh ilmahaygana caay ma leh gabadha kula joogta ee aniga walaashay ah ee xaaskaaga ah sahrane adduunka ayadaan ugu jeclahay ma fahanta ilaahayna kuu daysto taa markii laga soo tago nin walaalkayaa tahay nin saaxiibkayaa tahay forjo waxba uma arko ma garatay laakiin waxaan kuu sheegaa ummadda soomaaliyeed oo dhan waa ii simantaa daahir ma fahanta ummadda soomaaliyeed oo dhan waa ii simanta marka aan daaroodka la kaftamaayo ama aan la sheekaysanayo ama aan maaragtay dhex joogo haddaad rabto adiga u arag inaan gift ka rabo laakiin aniga sidaa maahi am greater than that waa ka weyna ma fahanti nin baahi ee u geeday inuu dad u raxleeyana maahi oo ninkaa taqaanaa ah karti meeshaan ka joogo geesinimo meeshaan ka joogo adaaba i sheegi jiraba ma fahanti marka inta aniga aan kuu hiliyo daahirow aan dakana kuu galanay waa ogta haddaan la isxaqirayn ma garan marka waxaan kuu sheegaa intaan ka badanna waxa waaye sii qaadameena meega agteeda sharafaa ku leedahay nin madaxaa tahay guulaysaan ku leedahay arrinta waxaan ka hadlayaa sikii iyo aniga dahde inta waaba ku afeefto waxaan ku nin qabiiliyaan nahay waa jirtay maskixiin aan kala jeclaa hawiyaha laakiin maanta kala ma jecli waa aan ila samaalaha kala jeclaa way jirtay laakiin maanta kala ma jecli nin qabiilnimadiisa aaminayaan nahay nin qabyaaladu aad u gashay baan nahay inuu sikii gabadha adeerku ahaa caayna waa tan barnaamijka hore ku sheegay hadda waxaan u arkaa in gabadhu ilmahaygana maya maya awlaadeyda maya macnaha daahir waa dhaamay aniga waa ka garaa maya daahir qalad waa waxaaga aniga fiiri aniga habbi kuma ihi horta halka ana meto waxa weeye saa sheegtay laba jeer baad ii soo dirtay mar horena wuu soo caayay ii soo dirtay marka dambe soo caayay ii soo dirtay weliba waxaan afka dee bini'aadanka qaba ku hadlaya laakiin aniga labadiiba munaasabad tii horena waa la hadlay waa uga digay haddana waxaan arkay dee ilmaha oo ayuub axmed xuseen dhalay ee sikii adeer u yahay hadduu xishood jiro gabadha uu hadda caynaya adeer buu u yahay idan oo gabadh ka fog ma ah marka
ninkii daalada sheestaa inaan intaan ninkii mabduuc ku furo aan la dagaalno oon dhahno ayaan siyaasad ahaan waxaan u arkay waxaan ka hor imaanaya siyaasadda qabiiliga ah ka hor imaanaya yaan u arkay marka ayuu raalli ka ahaw ninkaasna waxaa uu mar one day adurta waa taabato waxaad ka sheegto ka xanaaqay sidii hooyadu ka hadasho aad ma taqaaf waxaysa laakiin ma qabo in qof hawiye ah oo haddana gabar hawiye ay caayo iyo ilmaha hawiye ah waxaa sida ana iminka inaan ka weynaaday aan u maraynayaayo meel fog baan ka fadhiyaa sheekadaasna iminka caawo waa halkaasaan ku xidhayba ninkaasi adigana waxaan ku sheegaa intii istaqaanay intii wada dhalatay waa is cafinaysaa anaa ku sheegay wax kastoo dhaco waa la iska cafinayaa qabiilada hawiye oo dhan baa isdiri waa iska cafiyeen ilmaha iska dileen waa iska cafiyeen war aniga waxaan qabaa la yidhaahdo ayugu haweennimada iyo ednimada wax dhaaman la waayo ninku isagoo qabiilkiisa ah oo ku faaray ragga ha la xibaatamo wixii soomaalinimada guudna ha laga wada shaqeeyo tan qabiilnimadan yaa laga tegin marka kafta haddaan kula kaftamo waxa ay tiri naciimaan caadi waxaa tiri arrintii waa ka hadlaa tiri naciimo markeed wax ka sheegtay laakiin waxaa tiri sahra gabadh sharaf la waayo ceeb mala dila caaya cayb ama meesha marka taas waxaa weeye markii gabadha naciimo wax laga sheegana xoogaa way ku dhibaysay markii gabadha jecesha sahraha wax laga sheegana waxaa leedahay iyadii ilmaheedu sharaf way leeyihiin wax dhiba male marka waa ayinimadii waa ayinimadii labadooduba sharaf way leeyihiin taana way fiican tan way fiican ta wax dhiba male labadooda gabadh fiican wey marka labadooda xaqooda u wada dood maya laakiin diikay mala hadashay oo dee macnaha ku sheegaa ilmahayga waa caadaystay laakiin macnaha hadda tiktok aan joognaa أنا نكاس ما تبرعين إلهي بقول قف مسلم أهي ثم والله ما تبرعين نكا مدة أولية يكار له هويدا عين والله بس أنا كور مرة إرشوبة دي كل شيء بس ما قرت هالمرة والله بس أنا كور أوكي هبينك أبيت منه وأجد وعلها بس أفري تونكون أوقف فرتودا نكا كلية أو أرقب سكرت عنك واي كارلو ما فهمت ورجع أنت إيتمد public أنت يبرافة الظاهر وميغبسوا يساعدوا أيوه واحد سبعة فتين maya aniga u malayn maayo inay jirto haddii jirtana adaa sheegayo ninka awlaadeeda markuu caayaba aniga dagaal ku qaadan fa laakiin waa ballanay aniga asaga markaan is aragno dee ragana waxaan kala helaan leenahay laakiin waxaan kuu sheegaa daahir cali suu aniga wallaahi been ma kuu sheegayo awlaadeedu waa suu keemid ma fahanta adduunka waxaan ugu necbahay awlaad la caayo ma fahanta ha aniga nin xishood badan ahay markii laga soo tago social media iyo baashaalkan laakiin waxaan kuu sheegaa adiga hadda waxaa tiri naciimo markii la caayay aynima ku qaaday war ninkan awlaadeeda caynaya aad leedahay qabiili ah maqiil bay noqonay aniga aynimadu waa la gartay ma garat maqiil bay noqonay aynimada oo waxaad iga daba wada moogta maalin walba ma fahantaade waad igu shabadeedee qabiil baan macnaha على الحرانة كوجهي أنا سيدو كله عفوا ما فهمت